Assalaamu calaykum saaxiibada qiimiga badan oo meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada casharka maantay oo aan filayo in uu aad u xiiso badan yahay. Waxaana uu ku saabsan yahay sheeko ka hadlaysa saddexda jaad ee dadka mid mooye laba ka mid ah dadkan iska ilaali. The three types of people. A teacher macallin shows ayaa tusiyay three toys saddex boonbale to a student arday. And asks waxa uuna weydiiyay the student ardayga to find out inuu ogaado the differences farqiga u dhexeeya ama farqiyada u dhexeeya boonbalayaashaas. All the three toys dhammaan saddexda boonbale are seemed waxay u muuqdeen to be inay yihiin identical kuwa isku mid ah in their shape qaabkooda size iyo size-ka and material iyo waxyaabaha ay ka samaysan yihiin. After keen observation kadib u kuurgelid aad ah the student ardaygii observes waxa uu ogaaday holes godod in the toys oo ku yaala boonbalaha ama boonbalayaasha. First toy boonbalaha koowaad it has waxa uu lahaa holes godod ama duleelo in the ears oo dhagaha ku lahaa dhagaha ayuu ka dulay. The second toy boonbalaha labaadna has waxa uu lahaa holes duleelo in ear oo dhagta ah and mouth iyo afka duleel dhagta ah iyo mid afka. The third toy boonbalaha saddexaadna has only waxa uu lahaa one hole hal duleel in one ear oo hal dhag ah. Then use with needle iyada oo la isticmaalayo cirbad the student ardaygii puts waxa uu geliyay the needle cirbadii in the ear hole godkii ama duleelkii dhegta ku duleelay oo first toy ee boonbalihii koowaad. The needle cirbadii comes out waxay ka soo baxday from the other ear dhegtii kale ay ka soo baxday. In the second toy boonbalihii labaad when the needle was put markii cirbadii la geliyay in ear dhegtii the needle cirbadii came out of mouth waxay ka soo baxday afka. And in the third toy boonbalihii saddexaadna when the needle markii cirbadii was put in la geliyay the needle cirbadii didn't come out maysan soo bixin. The teacher macallinkii says waxa uu yiri first toy boonbalaha koowaad represent waxa uu taagan yahay those people dadka around you kugu hareeraysan who gives an impression kuwaasoo muujinaya ama bixinaya dareen muujinaya that they are listening to you inay ku dhageysanayaan. All your things dhammaan waxyaabaha aad tiri macnaha ama leedahay and care for you ayna danaynayaan but laakiin they just pretended to do so waa iska dhigayaan oo kale inay saas yihiin. After listening marka ay dhageystaan as the needle sidii cirbadii comes out from the next ear ay uga soo baxday dhegtii kale dhegtii laga gelshimaa dhegtii kale the things waxyaabihii you said to them aad ku tiri ayaga ama aad u sheegtay are gone immediately si dhaqsa ah ay dhegtii kale uga baxayaan. waa midda Soomaalidu ay tiraahdo dhega leer u duleela waxaas waa dhega leer u duleela oo wixii loo sheegay qofkii waxba kama soo qaaday. So be careful aad uga taxadar while you are speaking marka aad la hadlayso to this type of people dadka noocaana around you oo ka agdhow who doesn't care for you kuwaas oo aan ku kala jeclayn ama aan danaynin waxa ay sheegayso oo ay hore uga sii baxayaan. Second toy boonbalaha labaad represent waxa uu taagan yahay those people dadka who listens to you kuwaasoo ku dhageysta all your things dhammaan waxyaabaha macnaha waxyaabaha aad sheegayso dhammaan aad sheegtay and gives an impression bixinayana dareen ah that they care for you in ay danaynayaan ama ay kala jecel yihiin waxa sheegayso but laakiin as in the toy sida boonbalihii the needle cirbadu comes out ay ka soo baxday from mouth afka markii dhegta laga gelshay afka ay ka soo baxday. These people dadkaas will use waxay isticmaalayaan ama isticmaali doonaan
your things waxyaabahaagii waxyaabaha aad sheegtay and the word is ereyadii you tell them aad u sheegtay against you si kaasoo horjeeda ay u isticmaalayaan oo adiga ay kugu ataagereynayaan ama ay kugu waxyeeleynayaan ama ay kugu weerarayaan ama ay xumaan kaaga sheegayaan by telling it iyaga oo u sheegaya to others dadka kale. Third toy bombalaha saddexaadna the needle cirbadu does not come out from it kama aysan soo bixin. Remember xusuuso hal dheg ayaa duleeshay halkii dheg markii la gelsho meel kale ay ka soo baxdaa maahan. These kinds of people dadka noocaasa will keep trust waxa ay ilaalinayaan aaminaada you have in them aad ku qabto. They are the ones waa kuwa who you can count on aad ku xisaabtami karto. Moral waa dulucda ama ujeedada sheekada. Marka sheekada ujeedkeedu waa intaan si fiican u fiiri. Always stay in a company weligaa la joog ama la soco ama la rafiiq of a people dadka who are loyal kuwaasoo daacad ah and trustworthy una qalma in la aamino. People dadka who listen to kuwaasoo dhageysanaya what you tell them waxaad u sheegto are always waxa ay yihiin the ones kuwa you can count on aad ku xisaabtami karto when you need them the most marka aad ugu baahi badan tahay. Inaha ayaan maanta kusoo koobaynaa casharkii oo aan filayo dabcan sheekada uu ku saabsanaa inay ahayd mid xiiso gaar ah leh. Intii ka horeysa haddii aadan horey noogu soo biirin fadlan nagu soo biir oo subscribe ku qabo channelka una sii share garee walaalaha kale si aan u gaarno. Wixii faallo amaan daliil talo iyo tusaale ahna way idiin furan yihiin. inta aynu dib iskugu soo laaban doono casharkan kiisa xiga. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.